Soomaali markaa imaaday adduunyo kale waa adduunyo weyn oo adduunyo kale oo dhinac 22 saacadood diyaaradda saarnaa inta imaaday markaasna dhaqaale waa lacag waa marka dad badanaa ay ag joogaan magacayga la qeelinaya I never thought ani ma ogeenin Soomaali sidaan miya waa lagu jecel yahay now I don't got no money everybody look at you different my own family dadkayga hataa ku dhacan like alhamdulillah I'm way small soddon sano aan dadkaas ka horeeya dadka inta meel ma ABC ma yaqaanaan what they gonna tell me marka loyalty daacadnimada ani sidaasaa ku dhaqmay ma wixii rabt malaasaa siinaya taa malaas haddana waa kana alxamdulilah caafimaad waa qabaa alxamdulilah waxaa ii sheegtay inaad lahayd girlfriend guys maaragtay ninkii gangsterka oo ka imaaday Mareykanka oo tattoos kale waxa jira hadal xigmad weyn la u dhahay idinka si fiican mayna dhageysan wuxuu dhahay Soomaaliya markay imaaday family-giisa si fiican ay soo dhaweeyeen jacayl baa la imuujiyay waxa is dhahay in Soomaaliya misaan baa lagu jecel waa yaabay buu dhahay kabacdi markii lacagta iga laabatay biir everybody disappear qof kasta waa waay dadka meel ka baxeen dadka hal ba u siibteen hata family-gayga laba u siibteen u dhahay dadka Soomaali jooga nooca way dadka Soomaali jooga qofka family-gooda waxa kala qaalisan lacagta sawir qaldan ay ka haystaan waxay ka aaminsan lacagta wax weyn oo buuran oo balaayo ah ma aaminsana inay jirto nolol kale oo lacag ahayn lacagta sawir oo nooc kale ka aaminsan yani wax very important oo aad muhiim u ah way u arkaan lacagta waa waraaqo birichebka ku jira saadama nin kale jeebkiisa ku jirta nolosha waa wareegto nolosha ups and down bay leedahay hadaa maanta lacag haysto weligaa lacag ma haysto doonti hadaa maanta shid tahay weligaa shid ma ahan doonti maalin ku kala kacaysaa so weligaaga family-gaaga baa ka muhiimsan lacagta waliba qaasatan dumarka Soomaali joogo kala hada noloshooda ay iibin karaan waxay u arkaan lacagtu wax weyn daas way u guursadaan qof lacag darteed u guursadaan ay isku faraxsaneen habina ku ahaan